بسم الله magacayga waa Abdulla Awkar Hiraabe ku takhasusay daaweynta iyo cudurrada wadnaha ka shaqeeya isbitaalka Shifa Specialist Hospital u soo noqdo su'aashaada soo koobo waxay ka dhigan tahay in wadnaha la weyneeyo oo loo soo biyo hal maalin si dadka hal wacyi geliyo u tahay maalin oo dadka ogaadaan in xanuunka wadnaha yahay xanuun halis ah xanuunkan waxay tahay xanuun oo la xiriiro in uu halbowlaha dhiigga kamid ah siiga murqaha wadnaha inuu xirmo Soomaaliyana hadda waxay tahay in uu yahay number 1 cudurrada ku dhacaan wadnaha iyo wax la xiriira wadna xanuun hadda qaybta ka hadlayna waxa weeye in waxa xidid kamid ah xirmo wadnaha ama hal ama laba ama saddex ama si naaqis u xirmaan ama si buuxda وحرمان هذا هذا إنه مثل كواد وناقص وحرمه حتى هاي إنه ودناها ودريمه حنون قيبته المديك يو قيبته سرقارته إنه قدر يوقفك إنه حنونته قيبته كلام حتى هاي وحالات منطقة حالية مركز إمرجنسي حاسب بنا بارتانا صوبنا وبيسيجي لوجو كرو حكمي ده كها وكله ECG oo kale ibartaan oo labka inta isbitaalku waxa uu xanuun u maado boqolkiiba 60 ka badan waxa uu maadaan xanuunka wadnaha marka waxa micnaheedu waxay tahay in qofka waxa xanuunkan ku dhici karo hadda ku dhacan hadii laga daaweeyay inuu caadigiisa ha karo ama asoo qabo xanuunka in noloshiisa caadi wada karo micnaheedu ma aha hadda xamar qabtid xanuun qabtid inaan aqoonsid ama dhimanayso ma hadda risk factors ajiro age ko kale waa kamid qofka dad male iyo female yahana waxa waaye meelka u badan yahay qofka waxa dadkan oo fadhiga badan waxa waaye inta ku badan yahay iyo dadka waxa history qabaan oo aabaha ama awoow qabay wadna xanuun in ay kana waxa ku dhaco aad u nugul yihiin dhaxal oo kale ka soo qaado qofka abiis u dhintay wadna xanuun oo kale waxa laga yaabaa in asiina oo u dhinto xanuunka kafeega isha xataa waxa waaye waxyaabaha kiciyo kamid yahay wadnaha in oo garaaciisa wadnaha kala kiciyaan qof waxa laga yaabaa korontada wadnaha kale inuu dhib ka qabay waxa laga yaabaa inuu kafeey badan caabay in wadnihiisa waxa istaago isla markiiba mandoriyahana waa qasab waxa waaye sigaarka kale waxay sabaysaa inuu xididada wadnaha xirmaan xanuunka soo batay laakiin hadda waxa jiraan oo kale cuntooyinka hadda cunno kale waxa uu badan cuntooyinka cusbada ku badan tahay cabitaanada sokorta ku badan tahay cuntooyinka mataqana greasy foodka oo fat ku badan tahay waxyaabahaas waxay kamid yihiin waxyaabaha hadda waxaan usoo kordhay cusub muhiimada waxa waaye in dadka waxa la wacyi geliyo loo sheego xanuunkan inuu xanuun halis yahay dhagooda mataqana badan maqlaan lagu celceliyo ayagana waxa waaye u bartaan in xanuunkan yahay xanuun halis ah stages waxay ku xiran tahay bukaanka ku xiran tahay waxa jira bukaan waxa jira totally mataqana block oo ku dhaco xididka ama halbowlaha waxay noqonaysaa bukaankaas marka in operation yar oo loo soo biyo oo mataqana tubooyin laga soo geliyo lugta ama gacanta kabacdi mataqana wadnaha la geeyo kabacdi loo furo wadnaha dad waxa jiraan waxa u baahneen oo simple wuxuu yahay inay iska imaadaan daawo qaataan risk factors ka yareeyaan mataqana siyaara cabka iyo maqaadaraadka yareeyaan almitayaan waxa socdaan qofkii oo waxa mataqala tacaalana xanuunadan kala qabo sokorta dhiigkarkan hadii la tacaalana waxa noqon caadi dhiigkarka qofka doo wax badan qabo waxa laga yaabaa inuu wadnaha oo mataqana hol gababo frinta direen waxa waaye in oo bukaanada bartaan in xanuunkan xanuun halis yahay haddii isku arkaan wixii mataqana calaamadaha isku arkaan in isbitaalka soo gaaraan meesha ugu dhow ay ka heli karaan caafimaad inay waxa u doontaan